fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir adigoo subscribe noo saaraya mahadsanid. War is a epitome of fail for all involved. To this, The federal government had every right to deploy federal security forces. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya waxa uu soo afjaray colaad 10 sano jirsatay oo kala dhaxaysay waddanka Eritrea waxa ayna noqdeen saaxiibo isku dhow. laakiin in ka yar sanad xukuumadda Addis Ababa waxay dagaal ku qaaday deegaan ka mid ah deegaamadeeda waa dowlad deegaanka Tigray oo dhaca waqooyiga Itoobiya kaas oo xad la leh waddanka Eritrea. Dagaalkan waxaa qayb ka ahaa ciidamada Eritrea oo ka soo gudbay xuduudka ay labada waddan wadaagaan. waqti xaadirkan Itoobiya waxay dagaal kula jirtaa jabhaddii TPLF ee ka talinaysay deegaankaas. waxaa ku dhintay kumanaan ciidamada dagaalamaya iyo shacabba. waxaa ku barakaxay colaadan in ka badan 60,000 oo shacab ah iyagoo miciin biday dhankaas iyo xuduudka ay la wadaagaan waddanka Suudaan. Itoobiya waxa u muuqatay waddan helaya deganaansho kadib markii uu la wareegay Abiy Ahmed, laakiinse waaba ka sii dartay. boqortooyadii ka talin jirtay dhulka Xabashida waxay halgan adag la galeen guumaystayaashii reer Yurub iyadoo noqotay waddan aan weligeed la guumaysan. waxaa ku nool in ka badan 84 qowmiyadood. inta badan waxaa ka soo talinayay boqorro axmaara halka shacabkooduna isku arkaan in iyaga kaliya ay yihiin muwaadiniinta koowaad halka qowmiyadaha kalena loo arko muwaadiniinta labaad. kadib dagaalkii labaad ee adduunka, boqortooyadii Itoobiya waxay la midowday Eritrea si ay u noqdaan hal waddan oo xooggan. laakiin waxaa markiiba samaysmay jabhado diidan midowga labada waddan dibna u raadinaya inay ka goostaan Itoobiya. waxaa ugu tuturoona jabhaddii xoreynta shacabka Eritrea EPLF. waqti kadib sanadkii 1974 waxaa talada waddanka la wareegay Kalitaliya Mengistu kadib markii ay xukunka ka tuureen boqor Haile Selassie oo in badan ka soo talinayay waddanka. Kalitaliya Mengistu wuxuu xasuuqyo badan u geystay qowmiyadaha aan axmaarada ahayn haba ugu badnaadeen qowmiyadda Soomaalida iyo Oromadu. cadaadis badan oo uu shacabka saaray waxaa aas-aasmay jabhado kala duwan sida TPLF oo u taagan jabhadda xoreynta shacabka Tigray taas oo bilowday inay si dhow ula shaqeyso jabhaddii xoreynta shacabka Eritrea EPLF. halkaas waxaa ka soo baxay xoog hubeysan oo iska caabin kara. Corneille Mengistuna wuxuu ugu jawaabay inuu laayo shacabka Tigray xataa heer uu ka hor istaagay kaalmadii adduunka u fidin lahaa gobolkaas. in ka badan 1 milyan oo Itoobiyaan ah ayaa la dilay waqtigii uu hayay talada waddanka Corneille Mengistu. laakiin dabayaaqadii 80-aadkii jabhadda TPLF iyo EPLF waxay urursadeen oo ay tababarteen kumanaan dagaalamayaal ah ilaa 1990kii xulufo ay ku noqdeen sidii ay xukunka uga tuuri lahaayeen Corneille Mengistu. ugu dambeynna waa ay ku guuleysteen hadafkoodii oo ahaa inay xukunka dhaafiyaan Corneille Mengistu. maalmo yar kadib waqtigaas Eritrea waxay ku dhawaaqday inay goonsitaag ka qaadanayso Itoobiya inteeda kale. TPLF jabhadda xoreynta shacabka Tigray waxay noqotay mid waddankoo dhan gacan bir ah ku qabata. hogaamiyihii jabhadduna Meles Zenawi wuxuu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya. Meles wuxuu dib u habeyn ku sameeyay dastuurka waddanka isagoo sameeyay hanaan federalism qowmiyad ku salaysan oo ka kooban 9 dowlad deegaan iskoodna isku maamulaan. TPLF waxay matalaysay shacab lagu qiyaaso 5% inuu ka noqonayo shucuubta Itoobiya, laakiin Meles Zenawi jabhaddiisu waxay xulufo la samaysatay 3 jabhadood oo u diga rogtay inay noqdaan xisbiyo. sanado yar kadib markii uu Meles Zenawi xukunka la wareegay wuxuu dagaal adag la galay Eritrea kaas oo salka ku haya xuduudka u dhaxeeya deegaanka Tigray iyo Eritrea. inkastoo ra'iisul wasaarihii Itoobiya ahaana hogaamiyihii TPLF dhintay sanadkii 2012 haddana ma aysan dhammaan awoodii TPLF. sanadkii 2015 Itoobiya waxaa ka dhacday wax u eeg doorasho oo ay ku guuleysteen ururadii bahwadaagta ahaa ee TPLF hogaaminaysay. laakiin markan waxaa mudaharaadyo kala hor yimid qowmiyadda Oromada oo socday ku dhawaad 3 sano oo dad badan lagu laayay. ugu dambeyn cadaadisyo badan oo soo wajahay Itoobiya waxaa is-casilay ra'iisul wasaarihii waqtigaas Haile Mariam Desalegn waxaana la doortay ra'iisul wasaare cusub oo ka soo jeeda qowmiyad la dulminaya in ka badan 100 sano. waa Abiy Ahmed oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada. Dr. Abiy Ahmed, young and outspoken, 60% of the votes, the first prime minister of Oromo descent. ra'iisul wasaaraha cusub ee la doortay wuxuu la soo baxay dardar cusub taas oo loo arkayay mid isku keeni kara waddanka iyo geeska Afrikaba. tallaabooyinkii uu qaaday waxaa ugu waaweynaa inuu soo afjaray colaadii dheereed ee kala dhaxaysay Eritrea kadib markii uu u ogolaaday dhulkii ay isku hayeen 10 sano. laakiin taas waxay ka cadhaysiisay hogaamintii TPLF waana meeshii koobaad ee ay iskaga hor yimaadeen Abiy Ahmed. tallaabadii labaad waxa uu beegsaday saraakiishii Tigray ee ugu sareysay xukuumadda kuwaas oo lagu eedeeyay inay boob iyo dhac weyn ka geysteen waddanka intii ay xukumayeen. Abiy Ahmed wuxuu ku casuumay dhammaan dowlad deegaanada inay ku soo biiraan hal xisbi oo laga gudbo 4 xisbi ee waddanka kaligood ka talin jiray laguna magacaabo xisbiga barwaaqada ee Itoobiya.
Prosperity Party. Dhammaan xisbiyadii ka talinayay dowlad deegaanada marka laga reebo TPLF waxay ku midoobeen hal xisbi. Intaas kadib Abiy Ahmed wuxuu dib u dhigay doorashadii qabsoomi lahayd sanadkii 2020 waxa uu ku sheegay caabuqa koronaha dartii in dib loogu dhigay. Waa arrin kale oo ay TPLF ka diiday Abiy, taas beddelkeedana waxa ay qabsadeen doorashadii deegaankooda oo isla jabhadda TPLF dib loogu doortay. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo xukuumaddiisuba waxay waxba kama jiraan ka soo qaadeen doorashadii TPLF qabsatay iyagoo ku tilmaamay mid sharciga baalmarsan, halka TPLFna sheegtay inaysan wixii hadda ka dambeeyay aqoonsaneen xukuumadda Abiy Ahmed. Abiy Ahmed wuxuu saaray cadaadis dhanka dhaqaalaha ah deegaanka Tigreega isaga oo ka jaray taageeradii dhaqaale ee uu siin jiray deegaankaas. Markan xaaladdu faraha ayay ka sii baxday kadib markii sida la sheegay TPLF weerartay saldhiggii ciidanka Itoobiya ee waqooyiga, halkaas ayuuna ka bilowday dagaalka rasmiga ah ee u dhexeeya jabhadda TPLF iyo Itoobiya. Ciidanka Itoobiya wuxuu dhowr goobood oo kala duwan ka weeraray deegaanka Tigreega. Sidoo kale waxaa dagaalkan qayb ka ahaa ciidanka Eritrea, taas oo ugu dambeyn sababtay in TPLF lagala wareego magaalooyin muhiim ah, jabhadduna ay duurka dib ugu laabato in ka badan 27 sano oo ay wadanka gacan bira ku maamuleysay. Kumanaan ayaa ku barakacay amaba ku dhintay colaadan. Abiy Ahmed markii uu talada wadanka qabtay wuxuu ballan qaaday inuu wadanka nabad ku soo dabaalay, hase ahaatee waxaad moodaa inay Itoobiya kala socoto marka aad fiiriso waaqica dhabta ah ee Itoobiya ay ku sugan tahay waqti xaadirkan.